wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Ukraine Dmytro Kuleba ayaa waxa uu sheegay in qorshihii koobaad ee duulaanka Ruushku uu ku soo qaaday dalkooda Ukraine uu ahaa inay muddo 3 maalmood ay ku qabsadaan dalka oo dhan. laakiinse wuxuu sheegay in qorshahaasi uu dhaxda ku kala go'ay kadib markii ay go'aansadeen ciidamada dalkaasi inay dagaalamaan. wuxuu yiri qorshahoodii koobaad wuxuu ahaa inay Ukraine ku qaataan ayuu 3 maalmood ay ku qabsadaan. waxayna ahayd ayuu qorshuhu inaan maanta anoo idin kala hadlayo caasimadda dalka Kiev halkan dadka ka hadlaya maanta inay noqdaan ayuu yiri mas'uuliyiinta ayuu yiri dawladda Ruushka ee meeshaas qabsada. Kuleba wuxuu kaloo sheegay in ay dawladda dalkaasi ay wado qorshihii Suuriya oo kale hadeer inay u bedesho dagaalka kadib markii jaranka khibradda badan ee dhinaca dagaalka magaalada Alexander ee Vinnytsia jaranka la yiraahdo loo soo bedelay ciidamada. wuxuuna sheegay in taasi noqon doonto duqeyn aan loo aabayeelin oo marka horeysa la baabi'iyo dhulka oo dhan dadkan la niyadjibiyo kadibna si fudud ciidamada dhulka loo geliyo taasoo ahayd qorshaha labaad ee hadeerta ay ku shaqeynayaan. dawladda dalka Russia ayaa u muuqatay in qorshaheedii koobaad uu ahaa mid aad u garaacmay kadib markii ciidamadii dhulka gelisay ka hor intaysan cirka aysan ka jilcin ama awoodda aysan ka wiiqin dalkaasi. madaxweynayaal ayaguna iyo hogaamiyaal gurmad ahaan ugu tagay madaxweynaha dalkaasi Ukraine iyo niyad wanaajin oo shir jiray dalkaasi ku qabtay ayaguna aflagaadooyin xoogan soo diray. shalay waxaana waa madaxweynaha Hungary Andrzej Duda waa madaxweynaha Poland arrinta waad ka raalgelinaya daawashana qiimaha badan dadkii daawaday ma arrintaas is fahmay. madaxweynaha Poland ayaa hogaaminayay dad markaasi ka socda dalalka kale iyo madaxda kale waxaana uu safarkan yahay safarkii laga reebay madaxweynaha Jarmalka ee ay ka duday dawladda Ukraine. markii uu tagay Andrzej Duda ayuu wuxuu sheegay in ay waxa ay arkaan ay ku arkeen dalkan ee ka dhacay burburka ay tahay wax argagixisanimo ah. wuxuuna sheegay dhigiisa asaguna dalkaasi Lithuania oo leeyahay Gdańsk Nasuta asaguna inuu waxa uu arkay ay tahay wax ka daran wixii naasiinta waxa laga wadaa wixii ay geysteen burburka geysteen. naasiintu dhowr iyo 40 milyan oo qof ayay dileen 6 milyan oo Yuhuud ay ku jiraan. isla markaana dadka qaar kood ayaa u arkaa in warbaahinta iyo madaxda reer galbeedku ay si isku mid ah uga badbadinayaan dagaalka halkaas ka dhacay. Lithuania, Latvia, Estonia iyo dalalka kale halkaasi tagay madaxdooda dhamaantood waxay sheegeen in isgarab taagi doonaan dalka Ukraine. madaxdooduna waxay isku soo sawireen shir jiray halkaasi ka dhacay. Ruushkuna wuxuu isticmaalayaa siyaasadda loo yaqaan tit for tat ama mid ku taag daas waxaa laga wadaa inay 398 xubnood oo aqalka Mareykanka xubnaha aqalka Congress-ka ay cunaqabatayn ku soo rogeen kadib markii ay sheegeen cunaqabatayn wadareedii ay kaga jawaabayaan lagu soo rogay aqalka Duma ee dalka Russia oo iyagana xubnahooda lagu soo wada rogay 328 iyadoo war qoraal ay soo saartay dawladda dalka Russia ayaa sheegtay in Ruushka uusan ka dulqaadanaynin foolxumooyinka iyo waxyaalaha qaladaadka faraha badan ee ka imaanaya Washington sida daraadeedna ayaguna ay dhankooda ka argodanayaan say hadalka u dhigeen waxayna sheegeen si wadi doonaan arrintaasi. mid ka mid ah dadka isaguna loo yaqaanay ama caanka ku ahaa jir dhisidda ama jirka in la dhiso Cedar McMillan loo yaqaanay ayaa geeriyooday isagoo 44 jir. ninkan wuxuu qaaday koobka loo yaqaan Arnold Classic wuxuuna ka tirsan ciidanka ilaalada qaranka dalka Mareykanka US Army and National Guard ama ciidanka qaranka dalka Mareykanka sidoo kale ciidanka ilaalada qaranka waxaana loo yaqaanay markaas jidhisihii ugu weynaa. waxaa arrintaas ku dhawaaqday shirkad inta badan iyadoo la shaqeysa ee loo yaqaan Black Schools USA waxaana war qoraal ay soo saareen ay sheegeen inay waayeen mid kamid ah dadkii ugu markaasi magaca weynaa shirkadda ayay yiraahdeen walaalka ayay yiraahdeen Cedar McMillan ayaana ku dhuminay ay yiraahdeen isagoo 44 jir. wuxuu noqon doonaa qofkii saddexaad ee dadka jirka miisaanka culus sameeya ee geeriyooda ayagoo ka yar da'da 50 ayaa ilaa iyo sanadkii hore kaliya sanadkii 2021 ayuu noqon doonaa ayaa hagaag daawashana qiimaha wararka waxa la dhinaca dunaasiyada wararkii dhinaca dunaasiyada deegaanka. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Iran Cabdullaahi yani kale yiraahdana waxa uu sheegay in ay jiraan heshiisyo hordhac oo laga gaaray sii deynta lacag iyo dhaqaale ay heli lahaayeen ama ka xirnaa Iran oo ay had inay mar hore helaan. wuxuu sheegay in heshiisyadu hadarta ay socdaan taasoo muujinaysa in markii ugu horeysay Mareykanka laga yaabo inuu dibciyay qaar ka mid ah cunaqabataynadii. hadalka isagu saas uma dhigin Xuseen Amiir Cabdullaahi laakiin wuxuu dhahay waxaanu heli doonaa 8 bilyan oo dollar oo naga xayiraan oo aanu heli doono ayuu toddobaadadan bangiyada ayaana wada hadal kula jirnaa. taas waxay ka dhigan tahay in Mareykanku arrintii laftuunta ka shay ahayd ee uu hangoolka faraha kula hayay inuu sii daayay. dalalka Shiinaha, Koonfurta Kooriya, Japan iyo Mareykanka ayaa lacagtii ugu badneed ka taala Iran taasoo ilaa sanadkii 2018 dawladda dalkaasi ay ka xayirtay kadib markii Mareykanku ay ku sheegeen in shirkadahaas ay lacagtiisa gudbiyaan bangiyada aysan la shaqeyn doonin. wakaaladda wararka Tasniim ayaa arrintaas soo xigtay. haddaba
gobolka bariga Afrika waxa uu yahay gobolada ugu dambeeya ee loolanka dhinaca awoodda iyo dagaalka qabooba uu ka socdo. taasi waxay ka dhigan tahay istaraatiijiyadda gobolka uu leeyahay iyo waliba qaar ka mid ah gobolka oo la aaminsan inuu dihin yahay ha ugu darnaato Soomaaliya waa dalka ugu qanisan gobolka oo dhan isla markaana waxa uu yahay gobolka dalka hadeerto dadkiisa ugu faqiirsan yihiin waayo waxa cunaha kaga xidhan siyaasado isdiidan iyo sidoo kale hogaamiyaashii dalka oo isfahmi diiday. haddaba si kastoo noqotaba Mareykanku waxa uu doonayay in gobolka uu ka soo jiito Shiinuhu horay ayuu dalalka gobolka badankoodii awood ugu yeeshay una qaatay una qaameeyay dalalka gobolka ugu markaasi magaca weyn oo laba kamid yihiin dalalka Ethiopia iyo Kenya iyo Djibouti saddexdaba waxa meersaday dawladda dalkaasi Shiine halka Ruushka iyo Shiinuhu labaduba ay saameynta ugu badan iyaguna ku leeyihiin Eritrea oo iyaduna magacad istaraatiiji ku taala. sarkaal ayuu Mareykanku u magacaabay markuu muddo 8 bilood jagada hayeen way sacasiri oo ninkii loo jiray Jeffrey Feltman hadeerta waxa uu magacaabay sarkaal kale oo leeyahay David Satterfield kaasoo isaguna wax ka yar dhowr bilood la sheegay in uu si hoose ugu sheegay wakaalada wararka Reuters inuu daalay oo iscasilayo. haddaba iscasilaadana waxay dharbaaxo siyaasadeed oo foolxun ku noqonaysaa dawladda dalka Mareykanka oo lagu eedeeyay xukuumaddan cusub ee Mareykanku in sida ay u wajahday arrinta gobolka bariga Afrika uu yahay si khaldan waayo waxay u martay NGO-yo iyo dadyow dawladnimada dalalkaasi ka soo horjeeda ayadoo lagu tilmaamay in shacabta dalalkaasi ay tooseen isla markaana ay si weyn u doonayaan dawlad adag inay dhalato. Ethiopia Maria Dhiigla la kala furtay isla markaana kacdoon shacab ayaa dhacay shacabkooduna 80% wuxuu taageeray dawladda in ka badan halka dawladaha kale ee Soomaaliya kamid tahay shacabku ay aad u taageersan yihiin in mar uun la helo dawladnimo soo noqota. Mareykanku laakiin waxa la sheegay in xogaha dhinaca siyaasadda uu ka qaato NGO-yo iyo shakhsiyaad lacag ku qaata kaliya inay dawladda markaasi joogtay fool xumeeyaan. haddaba sarkaalkan ayaa sheegay inuusan shaqada wadi karin sababta haddaba ay saraakiishu isku casilaan. Mareykanka labada nin horta waa laba nin oo diblomaasiyiinta Mareykanka ragga loogu jecel yahay ka mid aha guulo badan bayna diblomaasiyadda ku soo hooyeen markii ay diblomaasiyiinta hayeen ugu dambeeyay ninkan hadda David Satterfield waxa uu ahaa safiirkii u fadhiyay dal ka mid ah dalalka adduunka ugu muhiimsan Mareykanka oo lagu aaminay inuu safiir Mareykan uga noqdo dalka Turkiga. haddaba in uu sidaasi uu dalka Turkiga hadda la baxay inuu sidaas daba fudud isku casilo macnaheedu waxa weeye waa laba shay. wata koobaad waa in environmentiga ama deegaanka uu tagay iyo dalalka uu la kulmay uu arkay in aan laga rabin Mareykan oo ay saxa u Mareykanku diidan yahay ama bay'adu ay Mareykanka diidan tahay kadibna uu arkay in uusan asagu ku ceebo oo arintaasi uusan noqonin mid asaga eersata oo hadhowta la yiraahdo ala shaqadii ku fashilmay laakiin meelaan shaqo laga qaban karin hadii lagu diro waxa ka fiican inaad ka leexato tiraado aniga arrintan ma xalin karo wasida dulmaasiin ku beddelsan shaarkooda taas waa qodobka labaad waxa weeye waa in dulmaasigu marka uu arrinta u koor galo halka markuu soo bandhigay dawladda isku soo noqdo dawladdu ay diido inay wax kala qabato oo ay u fududeyso tusaale ahaan waxyaalaha u baahan la qabto ayuu soo dirasay xog iyo daraasaad iyo wuxuu keenay markaasi hindisayaal buu keenay hindisayaashii baa aqalka cad ka soo waayay ama waaxda arrimaha dibadda ka soo waayay kadib wuxuu dhahay dad mar wixii aniga ila qumana in wax lagu xalliyo subinayn nagu kala wada iska isleey labadaas diblomaasiyiinta horta isku casilaan inta badan marka laga reebo fadeexad iyada waa gaar fadeexad qofka uu galo waa arrin gaar laakiin inta badan waa markay shaqo noqoto oo task qofka loo dhiibo saas noqota. haddaba labada arrimood tebay kula tahay in ay ninkan isku casilay anigu waxaan u badinayaa inay hore tahay oo ay tahay in ay environmentiga ay tageen waayo ninkan kiisaska loo diray baa ka garanana waxa loo diray wuxuu ninkan horta loo diray Djibouti Sudan Soomaaliya Ethiopia iyo Eritrea markaan saa u fiirino marka dalka Eritrea Mareykan soo arki kara marka horeysaba lagama ogola xataa waxa laga yaabaa in visa loo diido inuu tago waayo Mareykanku maanta gudubeysa cunaq qabataan bay saareen. Ethiopia Mareykan ayaguna dhabarkay isku jeediyeen oo afartii cod ugu dambeeyay Ruushka taageertay waayo Ruushka iyaga taageeray markii jabhadihii bay ku eedeeyeen Mareykanku taageeray waa halkaas. militariga Sudan iyo Mareykankuna waa kala leexdeen ayaguna Sudan waa tii militariga iska xadiriyeen Ruushka iyo Shiina maxaa soo haray Djibouti Soomaaliya Djibouti ayaduna waa ta heshiis aad u badan iyo suuqan xorta ah waxa dhisaysa Shiine waxayna u badatay Djibouti dhinaca ganacsiga iyo wax la qabsiga Shiina maxaa soo haray Soomaaliya waa laga yaabaa in ay weli jiraan dad u haya abateed gaar ahaan siyaasiyiinta Mareykanka laakiinse marka la eego dawladda hadeerta Soomaaliya ee jirta waxay hubkii ugu badnaa dhawaan ay ka heshay Shiinaha isla markaana 100 gaari oo dhow maanta inuu baabuurta soo badhigay kamid ayay heleen taasina waxay keentay in Shiinuhu waliba sheegay inuusan wax shuruuda ku xidhaynin waxyaalaha